هناك أو المسان إذا هو حنا هاي ضريرة وغيره وحنا صدقة أرورية وإفتن الله إفتن بالبلد هنا هاي قصتنا ما أنت هل كان أنا نكسو عزومي العزومات أنه في سنة وأكون هتسنتين صلى الله عليه oo maanta taariikhdii kooxda iyo guulihii soo hoyday waxaa ka sheekayay laba kabtan iyo gudoomiyihii kooxda laakiin wax walba la sameynaya dhaqaale u baahan yihiin marka sidaas darteed kooxdeena waxay go'aansatay fiisa masuurikh in aan yeelano guddi dhaqaale oo xagga dhaqaalaha u qaabilsan looga soo aruuriyo dadka ciyaartooyda kooxda ka tirsan iyo haddii ay noqon lahayd meelihii kale wax ka helayno marka ujeediin magacan aan isla garan horta oo FC Zurich iyo calaamadaas oo ka turjumayso ishtaadka aan ku noolnahay oo ishtaad Zurich oo aan ku darnay kaliya xidigta dhexda ku jirto because calaamad kaliya hadaa qaadan waxaa laga yaabaa in qolada ishtaadkana qabsato moogtaa saas darteed waxyaraa ka bedelay sidaas darteed calaamadaas samaynteedii diiwaangelinteedii because xiriirka isboortiga ee FIFA ee magaalada Zurich koox walba way diiwaan gashan tahay kooxaha caalamiga ah kooxdeennana sidaas darteed ayaan waxaan sameynay in aan diiwaan galin si loo ogaado oo beri ka maalin haddii xitaa meel loogu soo hagaagayo haddii aad garoon dalbanaysid haddii aad wax qabsanaysid kooxdaada ma la yaqaan haddii la dhaho gobolka laga raadiyo si loo helo ayaan waxaan ka diiwaan gelinay oon aan ka codsanay in ay nagu daraan kooxda fircaynada diiwaan geliya ee Stade Zurich wayna malafkeena u dhiibnay ilaa hadda wax warqada meena helin laakiin waxaan rajeynaynaa in ay arrintaas ay hirgasho marka waxa aynu sameynaa xiriiro aan la yeelano gobolada oo aan kusoo dheelno ayagana ay noo imaadaan halka nagula dheelaan koobab lagu casuumay oo aan ka qayb galno sida koox howlkan hadda aan ku qabanayno shirka waxa iska leh dad Turkish ah markii aan ka codsanayna halkan aan hawshan ku qabsan waxaan noo sheegay in uu jiro koob ka dhacayo Solothurn sanadka soo socdo ay yiraahdeen 35 koox oo Turkish u badan ay soo qayb galaysa nagu casuumay inaan ka qayb galno marka dhinacaasna waxaan rajeynaynaa inaan asagana guulo ka soo hoyn doono waana qaban doonaa kulamo kale oo isku xirka dadka bulshada isboortiga iyo reer Zurich waxaan gabadhii waxaan ku soo gabagabaynayaa khudbadihii kooxda iyo madaxdoodii gudoomiye ku-xigeenka ahna macalinka kooxda xasan maxamed cumar isaga ayaa ugu dambeeya khudbadaha waxaa ka dambeyn doona kuliya xiritaanka oo si shacbi loo soo xiray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هرت هذا ولا يعرف في عيني ضدك هذا بعيد لكن نرتبط قوة رسول إني ما هاد عليها رمان أنت كسوق هذا الشيء حفلة مشايخ لا أضياشة كلو سبورتي وهرم مجالنا نوصل فيين جالية ده إفتن جروب رمان وإن سلام يا سلام تسلم كأن نقول سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hawshan waxa waaye taariikheedii iyo wixii laga dhihi rabo horaa looga soo yiri laakiin halka xabooyin kugu diray waxay tahay in badan ayaan maaragtay Zurich waqtiga aan soo galay ilaa hadda inta ka dhacay sportiga oo ku dhex jiray laakiin dhalinyaradan waxay idinkaga sheekeynaa wax dhalinyaradan inaan idinkaga taataabto aan jeclaa hadii alla yiraahdo kulay idinkoo culumadii iyo odayaashii iyo jaaliyadii inta dhameed aad wado iyo gabdhihii aad ku dhantihiin haddii aad daynaysiin idinka idin taala haddii aad sii qabaysiin oo sii dhiirigeliysiin idinka idin taala insha Allah laakiin dhalinyaradan waxaan ku arkay maalintii ay dalbadeen ee aan u tagay ereyga koowaad oo wuxuu ahaa ismaqalka iyo asluubta macnaha dad ismaqlaayo oo is ixtiraamayo haddii aad tihiin anigu diyaaranayaa inaan waqti idinku lumiyo haddii laakiin aadan ahaynina dad is ixtiraamayo oo maaragtay mar walbaba tixgelin iyo respect isiinayn aniga waqtiga luminina idinkan waqtiga iska luminina magaaladan waxa u timideen kulay family ay soo darsado orodkiina roogan xaqiiqiyan way iga ballan qaadeen ilaa ay haddana waa intaan isku la joogno waa mid ugu horeyso waxaan aaminsanahay mar walba dad haddii meel iskugu yimaadeen
in ay hoggaan la-aan aysan socon karin, ismaqal la-aan iyo isdhexgelinna aysan socon karin. intii ayaan ka arkay, idinkana idinku soo gaarsiiyey wixii waqtigan ka dambeeyo. haddii aad leedihiin adiga macallinkii aqaan ay kuu doorseen iyo ayagiba zuurqa ku fasaxantihiin iyo waddankii Swiss waa idinka. haddii aad leedihiin intaan na soo gaarsiiso waa aragna hadda wixii ka dambeeyana garbahaagaan taagannahay na waa idinka. xaqiiqiyan wax badan ayaa loo baahan yahay. hadda sidii maaragtay gudoomiye xashar oo ka hadloo kale, aniga wuxuu ii yahay odayga isboortiga magaalada Zuurqa aan ugu imiday markaan imiday ilaa hadda inta ka dhaxlay. xasan naaji aa kamid a, sheekh axmed saalim aa kamid a, akhyaar badan ay wada leeyihiin. runtii wax badan aan kala arrinsadaa, wax badan aan kala hadlaa dhanka isboortiga haddii la yidhaahdo. in badan waxaan aaminsanahay koobabkii hore oo ilaahay nagu soo guuleeyey. axmed saalim aa ila joogay. xaqiiqiyan waa cayaar aniga oo igu taagneeday oo natiijo aan lahaay, oo natiijadaas daana kusoo bixin ay hawshayda aysan fiicneen. koobkii ugu dambeeya soo qaaday inuu ahay aan jeclaa waa u tegey. raggana ma wada aqoonin, laakiin waxaan weydiiyey systemkii aan garoonkaas wax ugu bedeli karin. wax fiican ayuu iga siiyey. mar walbana adduunka wada tashiga iyo ismaqalka iyo maaragtay istixgelinta horumaraa lagu gaari karaa. laakiin waa maasantiin, laakiin haddii aan la istixgelin oo qofba qofka kaleentood aysan ixtiraamin, waxaan umalaynaa inaan waxaan qabsan karna aysan jirin. kulley insha allah wax idin fari maayo. aniga qofki wax la fari lahaayaan ahay, qofki wax loo sheegi lahaayaan ahay. waxaan ula jeedaa ereyadaas ama culimada ha noqoto, ama odayaasha isboortiga ha noqdaano, ama odayaasha magaalada Zuurqa ha noqdaano. dhinac waliba dadka wax u sheegi lahay ama dhalinyarada wax u sheegi lahay idinka waaye. taas idinka idiin taallaa. warkana meeshaasaan ugu baxay. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa soo gabagabaynaynaa. waxaan codsanayaa gudoomiye Bashiir iyo Sheekh Sacad iyo gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda dhicisow inay halkaas soo istaagaan si ay u guddoonsiyaan dhalinyarada hadiyadaha. goorse oo ah qofka ugu horreeya la guddoonsiinaya hadiyadda. goorse waxaana guddoonsiinaya Sheekh Sacad. حمزة يا نويل حمزة. حمزة وحاب بدوسين بدون بحاجة جديدة. ديق الشيخ عمر يا أخوي ديق الشيخ عمر. احنا بدوسين يا بدنيا واحدة بشير. محمد موسى يا كوحيغو وحنا بدونسين الفتاح. هدية قدام بيس وحنا بدونسين يا عبد الرشيد قري وحنا بدونسين بدون كحيك جاليدة. shantaas dhalinyaro ee la guddoonsiiyey hadiyadaha waxay ku mutaysteen ciyaar wanaagooda, asluubta iyo weliba dadaal fara badan ay sameeyeen. waxaa kaloo inoo soo socdo shahaado sharafyo la guddoonsiinaya qaar ka mid a ciyaartooyda. waxaana ugu horeeyo sheekh cabdixakiin waa marti sharafta sheekh cabdixakiin sheekh cali suufi. waxaan u qaadaya gudoomiyaha ayaan u qaadaya shahaadadan la guddoonsiiyey sheekh cabdixakiin sheekh cali suufi ayaa kooxda FC Suriqsom waxay ay ku garatay in ay markaasi guddoonsiiso shahaado sharaftan oo aad u mutaystay isku xidhka bulshada Soomaaliyeed iyo baraarujinta xagga diinta ah ee sanad walba uu kala qayb galo bulshada ku dhaqan deegaankan Suriq Sheekh Cabdirashiid. gudoomiyaha ayaa u qaadaya shahaado sharafta kale waxaa la guddoonsiinayaa mudane xasan maxamed cumar oo ah macalinka kooxda. kooxda ayaa waxa ay ku gaartay in ay guddoonsiiso shahaadada macalinka
kadib markii uu ku mutaystay xilka culus ee macalinimo ee kooxda uu u hayo iyo weliba dadaalka uu muujiyey. xasan waxaa guddoonsiinaya Sheekh Sacad. shahaadada xigta waxaa la guddoonsinayaa Axmed Cumar Axmed Alaali oo isna ka tirsan kooxda kadib markii dadaalkiisa culus uu mutaystay ay kooxda garatay inay guddoonsiiso shahaado sharaf. waxaa la guddoonsinaya gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda. sidoo kale waxaa shahaado sharaf la guddoonsiinayaa Axmed Xuseen. shahaadadaas oo lagu guddoonsiiyey waajibkiisa uu ka gutay kooxda iyo weliba oo taageeradiisa. waxaana guddoonsiinaya gudoomiyaha kooxda waana kabtanka kooxda taala oo kabtan. shahaadadan ayaa waxaa la guddoonsiinayaa ururka Iftin Group. haddaynu nahay ay yidhahdeen kooxda FC Song waxaan ugu garanay shahaadadan sharaftan oo aan ku maamuusnay ururka Iftin Group uguna mahadnaqayno shaqada fiican ay bulshada Soomaaliyeed u hayaan. waxaana guddoonsiinaya gudoomiyaha jaaliyadda kooxda. shahaado sharafta ugu dambeysa ayaa waxaa la guddoonsiinayaa mudane Sheekh Sacad. iyo hagaar la'aanta ah ee uu garab istaagay kooxda Sheekh Sacad waxaa la guddoonsiinaya aniga laftirkeyga. ugu dambeyntiina iyo gabagabadii Sheekh Sacad ayaa ereyda ugu dambeysay kusoo xiraya. waana ku mahadsantihiin dhammaan kasoo qaybgalkiina iyo sida waqtiga aad u ilaaliseen iyo waqtiga aad noo soo horteen. aad ayaad u mahadsantihiin.